السلام عليكم ورحمة الله. marka lagu soo dhawaad channelkayga hadday live marka soo galay dadka waxaa weydiiyay maxaa rabtaan video inaan ka sameeyo dadka badankiisu waxay codsanayeen inaan faahfaahin ka bixiyo proteinada la cabo sida whey protein, casein protein. Saawad ognahay proteinada la cabo waxayna siiyaan maxaa la dhahaa protein halkiis qaadam 24 gram 26 gram waxay ku kala xiran tahay proteinada kuwa ugu badan 26 ku jiro marka waxa ka hadli doonaa whey protein iyo mataqaanaa maxaa farqiga u dhaxeeya proteinada kale saawad ognahay horta proteinada badankood caana laga sameeyaa badankood maxaa kulligood sababtoo ah whey caanaha laga sameeyaa casein waxaa laga sameeyaa caanaha laakiin caanaha markii la filtareena ama hagaajinayaan proteinka sameynayaan lagu kala qaybiyaan whey iyo casein oo kala qaybiyaan qofka murqo dhisay inuu protein cabo qasab ma tahay ama si ma taqaana qofka murqo u dhiso protein inuu cabo qasab ma tahay protein naacabtid qasab ma aha laakiin protein naacuntid qasab waay maxaa ula jeedaa cuntada la cuno proteinada la inaa cuntid qasab waay si murqo u dhistid maxaa yeelay protein ayaa murqo dhiso proteinku wuxuu ka saacidaa inaa mataqaanaa murqo dhistid inaa energy heshid hilibka doorada ukunta malayga proteinada ugu fiican waa proteinadaas supplement ku soo harto supplement qasab miyaa qofka inuu isticmaalo supplement micnaheedu waxaa waaye boos buuxis ama mataqaanaa dhamaystir ama wix kaa dhimnaa inay ku dhamaystirto haddii wax dhamaystir kaliya ay yihiin waayo dadku like uu dhigaya inaa protein cabtid inay qasab tahay qasab maaha kaliya waxaa waaye haddii maalinkii 100 gram lagaa reebo 200 gram lagaa reebo 150 gram lagaa reebo inay ku dhamaystirto wix kaa dhibnaayo haddii 80 gram cuntid oo 100 gram lagaa reebo 20 gram qaando protein ka heshid booskaada ku buuxiso laakiin maalmaha waxaa laga dhigay proteinka mataqaanaa inay qasab tahay dadka dhan waxay ku leeyihiin oo jima bilaa proteinka ugu talna like qofku dhaxay male maxaa cunaa maxaa cabaa waxa u maleeyaan la isku soo kacay kaliya caagad protein la cabaa oo easy marka lagu dhisaa hadda saas u fuudaa qof walba marqos ka dhigla waa isku soo kicila suuq halkan protein aan ku dhafan lahaa doorka jimka aadi lahaa ama suuq jimka aadi lahaa waxay u baahan tahay mataqaanaa inaa waxaa suuq cunaysa habeenkii waxaa cunaysa maalinta cunaysid total ahaantooda inaa protein fiican helaysid sidaasna waxaa ku samayn kartaa cunto walba cunaysa inaa wax protein lagu dartid hadaa bariis cunaysid dooro ku cun hadaa bariis cunaysid hilib ku cun malay ku cun suuq hadaa wax cunaysid ukun ku cun muhiimadaada as long as cuntada cunaysa wax protein ay ku jiraan you will be okay qasab ma inaa mataqaanaa suuqa tagtid $60 $70 caagad protein ku soo qasaarisid adoo awoodo inaa mataqaanaa bishi dhan hilibka proteinka cun lahayd $70 ku soo baxsatid maalinta ogaaday mataqaanaa inay protein faa'iido lahayn bil walba waxaa kaa baxayso $70 $80 qof walba saa yaqaan sidoo wax isticmaalaa markaad dukaanka tagtid aad soo gadatid caagad akhrisid 26 gram qoran suuqa markaad tagtid 100 gram oo chicken breast ama chicken whatever chicken markaas haystid almost inta gram protein ku jirto basically haddii aabo lacagteeda ku khasaarnaa wax la qasanayo caloosheeda ku dhargeyn haddaa hal qaanda protein ama ma dhargeysid laakiin hadda dooro iyo khudaar cuntid waa dhargeysaa xaqiiq waa midaas why askaga khasaarnay lacagtaas faraha badan just inaa mataqaana 26 gram protein helo anoo cunto ka heli karo hadda 4 ukun 5 ukun cuntid waa haysataa proteinkii ka heleed mataqaana qaandadaas waa dareemi karaa dadka qaarkood marmar dadku way shaqeeyaan dadku waxay bartaan busy tahay waxaa rabtaa quick protein rabtaa caagadaada ku shubana u qasanay okay qofkaas oo kale marsiya loo hayaa waqtiga ku yar cunto kariska jikada ku yar maybe cuntada proteinka u baahnaa ma heli karo wixii si easy inuu ku helo rabo okay qofkaas oo kale garta laakiin haddaad qofkaas ahayn ani ahaanteed muqulatan la inaa suuqa tagtid oo intaas lacag ku khasaaraysa mataqaanaa 26 gram protein maalintii si aweey waxaa filayaa inaa fahamtay proteinka video ka hadlay intaana ka bixin
wax dhibaato ma leedahay because Soomaalida badankood waxay aaminsan yihiin haddaa protein qabsatid kansarna kugu dhacay haddaa protein cabtid like I don't know meesha laga keeno waxaas proteinka caana laga sameeyo so caana maalin walba cabnaa so kansarka meesha ka imaado ma garanayo haddii caana kansar laga qaada leedahay then waaga yar in la hadda caana cabona taas micnaheedu waxaa Soomaalida dhan kansar ay qabtaa so waxaa ku dhihi lahaa wax kansar laga qaada ma jiraan protein kansar laga qaada ma jiraan just to make sure mataqaana hadday qasab kugu tahay inaad isticmaashid whey protein 100 soo gado like midka uu daraasaadka badan lagu sameeyo daraasaad ay ku sameeyaan waa whey protein laakiin priority-ga ayuu ahaanin booskaaga koowaad ayuu ahaanin booskaaga koowaad inay ahaato cunto wanaagsan training wanaagsan kadib haddaa protein u baahan tahay markaas oo kale marka waxaa filaa inaad video fahamtay haddaa channelka cusubta waxa la sameeyaa waa taqaana like subscribe sabta guys peace out